Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab tan iyo markii ay halkaasi ka bilaabanteen dagaalada ay kula jiraan labada dhinac ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalantay gudaha dalka Soomaaliya iyo dowladda dalkaasi ayaa meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya isku fara saaray, iyagoo inta badanna isaga horyimid gobollada Jubbada Dhexe iyo qaybo ka mid ah caasimadda Soomaaliya qaar kale oo ka mid ah gobollada dalkaasi Soomaaliya. Dowladda dalka Soomaaliya ayaa tan iyo markii ay kooxdaasi ka dillaacday dalkaasi dagaal ba'an kula jirtay, iyagoo ay labada kooxood ee dowladda dalka Soomaaliya iyo kooxda kale Al-Shabaab ay in badan is weerareen, isla mar ahaantaasina ay labada dhinacba soo gaadheen khasaare kala duwan. Al-Shabaab ayaa waxay Soomaaliya ka geysatay khasaare baaxad leh, iyadoo sidoo kale dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ATMIS iyo AMISOM iyana ay halkaasi iska caabino tiro badan ay ku dhex mareen. Haddaba iyadoo ay sidaasi tahay, Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in gabdhaha Soomaaliya ee ka cararaya gudniinka fircooniga iyo weliba kooxda dowladda dalka Soomaaliya ka dagaalantay Al-Shabaab ay u oggolaanayaan gabadh kasta oo Soomaaliyeed inay soo gaadho dalkoodaasi. Waa sida ay yidhaahdeen Midowga Yurub